Soomaalida ku dhaqan magaalada Columbus ee dalka Mareykanku waxay soo dhaweyn balaaran iyo kulan u qabteen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo socdaalo siyaasadeed ku kala bixinaya magaalooyin ku yaala waqooyiga Amerika. Kulankan oo ahaa mid ay dadweynuhu soo buuxdhaafiyeen ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, aqoon-yahano, madax iyo gudiyada jaaliyadda Soomaalida. waxayna dhammaan dadkii ka hadlay ku bogaadiyeen ra'iisul wasaarihii hore waxqabadkiisii kartidiisii iyo hawlihii uu qabtay muddadii koobneed ee uu xafiiska joogay. waxayna si isku mid ah ugu soo dhaweeyeen magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. waxaan u baahanahay heybadii Soomaaliya ayaan u baahanahay rag soo celiya maanta ayaan u baahanahay. rag iska sheegta mas'uuliyadda iska sheegta dalkana waxa weeyaan markay rag ay miiska isugu yimaadaan waxay ka hadlayaan baangarin rag wax loo yeerinayo uma baahnayn. ninka ragga waxa uu gartaa sidiisaba inuu yiraahdo mamaci yaa ila socda aniga macna laakiin hadduu mar yiraahdo waxa weeyaan ana macaman hadduu yiraahdo yaa anu raacaya gurubkaan raacaya hadduu yiraahdo ninka asaga uu ka dhintay waa inuu yaa wari ay soo raacaya aniga oo fikirkayga iyo waxa weeye war dalkaba idinka lehe yaa looga amar qaadanaysaan dalka waxaan u baahanahay inaad wadadii lagu talagalay waftiga qiimaha badan uu hogaaminayo mudane prime minister ku hore Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed dadweynaha sharafta loo xafladda ka soo qayb galay qaybahooda kala duwan waxaan leenahay ku soo dhawow Columbus Ohio mudane adiga iyo waftigaaga ku soo dhawaada Columbus Ohio waan ku soo dhaweynaynaa si diiran oo farxad iyo soo dhaweyn qaaliyo ku jirto waan isoo jaaliyadda Ohio ku soo dhaweynaya Prime Ministerkii hore Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed magaalada Columbus waxaan leeyahay soo dhawow waxaan kale oo aan runtii u mahadnaqayaa in badan baan waxaan arkaya xaflado iyo dad badan oo isu yimaada dadku markay yimaadaan marka waxay la yimaadaan qofka waxa uu la yimaadaa caawa waxa ay muuqda energy aad u xoog badan oo runtii dad faraxsan waxaan ilaahay ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed meel joogto ay farxado oo dawladnimadeeda ay ku farxado marka halka kale aysan ka marxin mudane ra'iisul wasaare shucuurtayda waa aragtaa waan ku soo dhaweynaynaa waana naga istaahishay waxaadna ku mutaysatay waqtigii koobnaa oo kugu yaraa annagana nagu yaraa ee aad xilka haysay hogaamintaada aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa higsiga ah in yar baahna ka xigtay ama xisbiyo ilaahay soo diray ha lagaga baxo ama tala kaloo muuqata ha lagaga baxo baahi qaran baa jira qaawanaan baa jira waa loo baahan yahay waan ku soo dhaweynaynaa waa istaahishaa shaqadan iyo mid ka weyna waa mudan tahay ilaahayna kuu salaan ku leenahay haddii hankaagu yahay sii badin maayo waa ku soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa oo kale xisbigaaga madasha insha Allah waxaan filaynaa Soomaaliya isku soo noqota Soomaaliya oo midowda Soomaaliya hal dastuur oo mataqaanaa ku qaybsadaan yeesha Soomaaliya mataqaanaa sita Thank you. cuntada isugu daraa gabadhu wiilka raashinka ka boobtaa malaha dheeraadka diinteeda gabdhaha waa jira cuntada markay ka boobto wiilkii wuu dacwado yidhaabo gabadhu tani way baktiisay iga qabo odaygii antani buu kala duway markuu kala duway maalinta dambe odaygii la joogaa cuntadii la soo dhigo wiilkeena meel baa loo dhigay gabadheena meel baa loo dhigay gabadhii boobkii bay bilowdo labadeedii kadbood baa ku qaatay odaygii buu soo jeediyey bale iyadii baa kala goobaysay maanta dalkeenu wuxuu ku jiraa iyadii baa kala goobaysay magaala madaxa gobollada degmooyinka tuulooyinka ilaa iyo heer baad
daadiyey ayaa la kala dhowaya la isku waqaysa marka ilaahay naynoo sakiro adduunyada ku booliyo inuu hawshaan ku guulaysto dadka meeshii uu u baahnaa inuu dhigo oo halkiisa assalaamu calaykum sida xitoobaduhu ayaa samaysay dhaqaale ma haysan da'du waa yiraayeen hanti ma helin waxay ka qabteen waddanka Soomaaliya madax kama noqon dhaqaale kama samaysan haddana maanta gobonimada aljabri ayaa ku helay sidaas la mid ah madaxda maanta madasha abuurano waxa waaye waa lagu dili karaa waa lagu xiri karaa waxa waaye waa loo bareeray in la sameeyo laakiin waxaan doonaynaa iftiinkaas inuu socdo una garab fiisaan waa midda maanta ku nimid waa midda ka shanaynaa waxaan ka codsanaynaa walaalayaal waxaa sidoo kale khudbad dheerayd oo isugu jirtay xog waran xaaladda guud iyo qorshaha madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda ee haatan uu hoggaankeeda hayo soo jeediyey Dr. Cabdiwali Sheekh Axmed asagoo khudbadiisana diiradda ku saaray qodobo ay ka mid yihiin sida ay lagama maarmaan u tahay meelmarinta higsiga 2016 iyo waliba taabagelinta doorasho xaq iyo xalaal ah oo dalka ka qabsoonta taasoo uu sheegay in ay noqon doonto dawladnimada dhabta ah ee ummadda Soomaaliyeed u talowdo innagu waxaan riixaynaa inaan ballantaas lagu fashilmin oo Soomaalidu shacabku uu doorto wakiiladiisa oo aan musuqmaasuq lagu keenin waxaan kaloo ka soo horjeednaa inaan durugsi la sameeyo waqti dheeraysi inaan la sameynin ee shacabka loo ogolaado inay go'aan gaaraan arrintaas su'aasha marka waxaa weeye suurtagal ma tahay in dadku wax doorto laablakac ma ahayn daraasad baan sameynay mas'uulka meesha joogay baan ahaa waxaan aaminsanahay oon aad u aaminsanahay haddii shacabku dadaalo oo inta la midka aanu howlgalno qaabka loo howlgeli lahaana waa wadnaa oo waan kala tashan doonaa doorasho waa dhici kartaa 2016 mana halabka nooc waa jira doorasho la yiraahdo proportional representation ama nooca saamiga siman markii aan xamarka soo baxay waxaan qabanay shir balaaran Nairobi baan ku qabanay waxaan isu keenay ilaa 15 khabiir oo dalal annaga nala mid ah doorashooyinka hirgeliyay Afghanistan, Iraq, Mali, dalal badan South Africa markii apartheid uu tagay Rwanda, Burundi waa isu keenay waxaan fiirnay duruuftii ayagu ku jiraan iyo mid annaga aan ku jiro waan la tashanaa waxaan rag meeshaan fadhiyay joogay markaas dhagaweyna Nairobi nala joogay waxaa soo baxday in haddii proportional representation kaas la isticmaalo oo South Africa 98 dal baa isticmaala oo South Africa iyo Israel Iraq iyo Afghanistan ay ka mid yihiin in doorasho 2016 la qaban doono kadib waxaan isugu yeeray xildhibaanadii markaan kala tashanayna waxay yiraahdeen waa suurtagal xamar baan ku noqday anigu waxaan la fariistay xukuumadda cusub oo madaxda ka yahay Umar Cabdishiid Umar laftiisu waa joogay markaan hor dhignay oo ka doodnay ma muuqan wax ma aragtay shaki gelin kara in la qaban karo waxa kaliya shaki gelin kara waxa haddaan rabin doorasho aan rabin inaan dawlad noqono taas waxa weeye maxaan oran jiray digaag qorqabad iyo kuma cabdo waxa weeyaan haddii dadku u sarreebin waana rabnaa baan malaynayaa ma rabnaa haddaan rabno doorasho waa geli kartaa waa rabnaa waxa weeye haddii la doorto doorashadan proportional representationka waxay ogolaanaysaa in أحزاب تلادورتو اللي لسه وحنا أقولان يصير دياسبورا دوينا القدس. هذيك كقط كقد جلسان. مصرحين بديلان يصير. كولومبوس هاي الصومالي الجوكتا قيب كقاعدنا يعني سياسة الدلكة
meeshana lidinku keenaya sejooyin aad codkiina ku siisaan qof adinkeeda ka mid ah ama qof kale oo Soomaaliya jooga aad doorataan isku soo wada duubo madasha ayaa ahayd mid muujinaysa taageerada lixaad kale ee uu haysto Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyadoo ay goobta soo buux dhaafiyeen Soomaalida ku dhaqan magaalada Columbus ee dalka Mareykanka Salmaan Xaashi Dheere Kulmiye TV Columbus.